waxaan leeyahay walaalayaal madaxweynaha la doortay ee dawladda Soomaaliya waynu hambalyeynayna wixii dardaaran aniga igaga beegnaa maalin dhaweyd baan idhi waxaan se ka markhaati kacayaa inuu yahay oday Soomaaliyeed ayaan uga markhaati kacayaa inuu yahay xilligii aanu wadnay mashruuca DB Well iyo Berbera Corridor wuxuu ka ahaa madaxweyne Soomaaliya si waayeelnimo leh ayuu arrintan noogala dhaqmay kuma joogsan mashruuca ma dibin daabiyeyn mana ashkatayn waa ugu abaal haynaa waxaan leeyahay xasan Somaliland inta qura kaagama fadhido ee wax ka weyn bay kaaga fadhidaa oo ay xaq u leedahay madaxweyne Farmaajo maalintuu yimid bedelay xasan wuxuu bilaabay inuu mashruuca dacweeyo oo ku joogsado oo la baabi'iyo nin waliba intuu inoo soo joogsaday inuu joogsan doonaa waxaanay ummad abaalka taqaana waxaan leeyahay walaaladeenna koonfureed waxaan leenahay waxaanu nahay halyeeyadii lahaa hal abuurkii iyo hindisihii iyo halgankii Soomaali weyn nasiib darro waxaanu ka helay ama ka heensanay hungo iyo hadhuub maran dadkani wuu tashaday wuuna isku tashaday ilaahayna waa tala saaranay intayada yar baanu iimaansanay war walaalayaal isku tashada oo tashadoo idinkuna intiina weyn iimaansada intaasaan leeyahay iyaga waxaan ugu darayaa waxaan leeyahay gacal isxigoo geel isugu jiro hadday isafgaran waayaan waxaa la gudboon inay kala guuraan oo geeloodana kala socdaan waa sunno noloshu leedahay qofka badowga reer miyiga baa intaa yaqaana heestii garnaqsi ee uu lahaa abwaankeenii weynaa Cali Seenyo waxaa ku jiray haddii gacalku isturqumo digada way kala rogtaan dawladda Somaliland maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa waxaa ka mid ahaa midhihiisii aad u qiimaha badnaa dorraato waxaan tawdiyo dare wayga yar maqata raali hada waxaan ku soo ururinayaa oo aan leeyahay walaalayaal madax banaanideena iyo qarannimadeena waxay u baahan tahay iskaashi iyo midnimo iyo wadajir waxay u baahan tahay inaynu nabadda ka shaqeyno waxaynu u baahanay inaynu is-iimaansano waxaynu u baahanay inaynu kala socnaato waxa aynu isku hayno iyo waxaynu ka midaysanahay waa nasiib darro maanta oo kale 17 May ama 18 May ama Mayba inaynu hadalla xanaf leh warbaahinta isu marino waxaan leeyahay maanta waa maalintii qaranka waxaynu u baahanay walaalayaal inaynu qarankeena u adeegno aad iyo aad baad u mahadsantihiin dadweynaha reer Gabiley waxaan uga mahadnaqayaa sida ay soo dhaweeyeen madax iyo minjaba waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka beeraha